maalinta qiyaamada miisaanka xasanaadka shayga ugu culus rasuulku wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan dabeecadda dabacsan ee macaan waa naxariis alle adayga iyo qallafsanaanta iyo naxariis darrada iyo afxumaduna waa ciqaab in lagugu ibtileeyo dabeecad noocaasa waa imtixaan iyo ciqaab weeye sida aayadda laga fahmayo maxaa yeelay waxay keeni kartaa adduunkana inaad mambuud noqoto lagaa kala cararo haddaad risaale iyo message iyo mabda' wadatayna mabda'aagii inaan la qaadanin cidina kugu soo ururin lagaa kala fiigo haddii kaleetana aad noqoto tuka cambaar leh iyo neef cadho qaba ruuxii ku arkaba waa kaa sii cararaya adduunkana aakharana ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa waxaad ka mid tahay addoommada ilaahay ugu necab yahay ugu shar badan in ilaahay tabaaraka wa tacaala dabeecad liidata oo khalqigii iyo addoommadii aad dhibto nafcigna lagaa waayaay taa macnaheedu wax weeyaan inaad tahay addoon aan khayr lahayn saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu ka hadlayay dadka mu'miniinta iimaanku wuxuu keenayaa inuu ruuxa dabeecaddiisu dabacdo wuxuu rasuulku uhi sal alla alay wasalam mu'minku waa ruux dabacsan waa ruux hayin ah waa ruux laylyan waa ruux garabkiisu dadka u dabacsan yahay waa ruux la soo dhoweeyo dadkana soo dhoweeyo waa loo soo dunmaa isaguna dadka waa dumaa khayr ma laha buu nabigu uri sal alla alay wasalam ruuxaan dadkana soo dumaynin isagana aan loo dunmaynin aan laga agdhowaanaynin aan lala fadhiisanaynin oo laga cararayo kaasi khayr ma leh buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhaqanku ina baray kaas wey iska dhaf dad khayiriin ah dad ahlulkhayr ah dad ahluliimaan ah inaad dabeecad iyo afxun iyo dhaqan xun kula dhaqantee kii uu nebigu sharka ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu haddana mucaamalada iyo dhaqanka iyo hadalka u hagaajiyey rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh li'anna diinteenna tiirarkeeda asaasiga waxaa ka mid ah inuu ruuxu akhlaaq wanaagsan yahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee addoommada lagula dhaqmaayey waa ka nebigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay miisaanka xasanaadka wax walba ka culus tahay maalinta qiyaamada miisaanka xasanaadka shayga ugu culus rasuulku wuxuu ku sheegay sal alla alay wasalam inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan wuxuu tilmaamay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka waxa ugu badan ee jannada geliyey marka la weydiiyo wuxuu yidhi xusnuulkhuluq akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan ficil wanaagsan hadal wanaagsan weji furan gacan furan khalqigooga wanaaggaagu gaadho xumaantaada iyo sharkaagana aad ka ceshato taasaa waxay tahay waxa u badanee dadka jannada geeya buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka akhlaaqdaada inaad hagaajiso dhaqan xumada la dagaalanto haddii dabeecad xun lagugu ibtileeyey aadan isu dhiibinoo u istislaamin aadan moodin sida dad badani ismoodayaan ruuxaad isqabataanba inaad ka adkaataay raganimo ma aha ruuxaad isqabataaneed murantaanba inaad ka raysaay raganimo maaha dadnimona ma aha ruux alla ruuxaad aragtaba inuu kaa cararood isu haysato wallaahi inaad dadkii oo dhan ka wada adkaatay taasi dadnimo ma aha nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yacni waxa weeye suracada ninka dadka wada legdaayey ruuxii ay ishelaanba legdo oo ka sara maraayey kaasi ma aha raganimadii adeegga wanaagsani ma aha adeegga wanaagsani waxa weeye in akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga aad dabciso sida nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbiguu ku tilmaamay saxaabadiisiina ay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim wuxuu rasuulkeena leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh miyaanan idiin warramaynin oo idiin sheegaynin ruuxa maalinta aakharo marka la tago naartu korkiisa ay xaaraan ka tahay oo naar gelaynin yuu yahay wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam waa addoon kasta oo hayin ah waa laylyan yahay xanaf ma leh meel ku xagata ma leh waa hayin layin weeyo waa dabacsan yahay qariib weeyo dadkoo dhan buu ka agdhow yahay dadkoo dhan baa jecel waa loo soo dhowaadaa waa lala fadhiistaa waa loo soo hiloobaa waa qariib min annaas sahlun weeye waa ruux sahlan
oo basiit ah oo mucaqqad ahayn ninkaa weeye ruuxa maalinta qiyaamada naartu korkiisa xaaraan ay ka tahay oo naar aan gelaynin buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kii dabeecaddu ka hallowday oo shariirka ahaana waa ka aan soo tilmaanno ilaahay agtiisa mansilada ugu xun khalqigana ugu shar badani waa ruuxaasi waa ruuxa ay afxumada iyo dhaqanxumada addoommada ilaahay la qaabilaya rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ma idiin sheegaa ma idiin kala caddeeya kiinna sharka badan iyo kiinna khayrka badan ma idiin kala qeexaa mid walba dabeecad wuxuu leeyahay dhaqan lagu garto noo kala qeex way rasuulillahi maxaan ku kala garanaynaa ilaan dadkii waa ka nin walba waa labisan yahay nin walba waa iska quruxsan yahay masaajidii waa la wada gelayaa ganacsigii iyo hawlihii iyo adduunyadii waa la wada eryanayaa noo kala saar ka sharka badan iyo ka khayrka badan nebigu wuxuu idhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ka idinku khayr badani waa midka wanaaggiisana la rajeeyo sharkiisana aamin laga yahay wixii wanaagee agtiisa yaalla waa la rajeeyaa cilmigiisa uu haysto dadka hunguri baa ka gala xoolihiisa waa la hunguriyeeyaa xooggiisa waa la hunguriyeeyaa wuxuu haystoo wanaaga dadku waa damcaan leanna inay ka helayaan bay rumaysan yihiin wixii sharkiisa iyo xumaantiisa iyo afxumadiisa iyo dhaqanxumadiisana aamin baa laga yahay oo dadku waxay leeyihiinoo ku qanacsan yihiin wax dhib inaga soo gaadhi maayo war inaynu wanaag kala kulanno mooyaane kollay dhib inooga imaan maayo sidaasay leeyihiin kaasi waa dadka ka ugu khayr badan waay dadka ka ugu shar badani nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa ruuxa aan khayrna laga rajaynin sharkiisana aan aamin laga ahayn wax wanaaga lagama helo lagamana doonto lagamana hunguriyeeyo sharkiisa iyo dhibkiisana dadku kama nabad helaan oo afkiisa iyo addinkiisa lagama nabad galo kaasaa addoommada ugu shar badan buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaynu dhaqan wanaagga ka qaadanno diinteenna khalqigana dhaqankaagu uu noqdo dhaqan ku salaysan naxariis iyo dabacsanaan iyo cafis iyo hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan khalqiga la qaabil ilaa diinteennu ay tidhaahdo wejiga ood furto iyo ilkaha ood ka muusootaay waa sadaqa markaad dadka la kulantay inaad weji furan kula kulanto oo markaad muxuu ahaaye aad la kulantaay aad u dhoolla caddaysaay laf ahaanteedaa sadaqa ah laakiin haddaad weji macbuus noqoto dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa laga kala cararaayo shiriir baa tahay markaas khalqigaasi aad ku dhex nooshahay iyo addoommadaa aad dhex joogto waxa ay kaa haystaan baad ilaahay agtiisana ka tahay soomaalidu waxay yidhaahdaan saad isu haysata ma ahee waa sida lagu haysto ma aha saad adugu naftaada ka rumaysan tahay leanna ruux walba naftiisu waa la qumanta waa isla quruxsan yahay waa isla quman yahay waa isla wan yahay nadiif buu isla yahay marka saad isu haysata mehe waa sida dadku kuu haystaan addoommada ilaahay ee mu'miniinteed ku dhex nooshahay waxay kaa rumaysan yihin baad ilaahay agtiisana ka tahay marka khalqiga ilaahayeed ku dhex nooshahay wixii ay kaa arkaan iyo dhaqanka aad kula dhaqanto iyo qaabka kaa muuqda afkaaga iyo addinkaaga kaas weeye waxa miisaanka fuulaya akhlaaqda hagaajiya afkana suubiya hadalkana dabciya dhaqankana hagaajiya addoommadana wanaaggaagu ha gaadho xumaantaada iyo sharkaagana ka cesho haddaad doonayso ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala wanaag iyo khayr inaad kala kulanto